dawlad marka la mucaaradayo ama la taageerayo waa inaad liis dheer wadataa dhahdaa kanoo ku xuma kanoo ku xun yahay kanoo ku fiican yahay kanoo ku fiican yahay kanoo ku xun yahay barnaamijkaygii marka waxaan u noqonayaa maxay u dhalatay towradu dhararaan ayay u dhalatay towradu dharar daryeelka dadkeena difaaca dalkeen ayay u dhalatay towradu muxuu qabtay maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan kuu marsiinayay inuu sacuudiga aaday inuu wajeer yimid horta anoo dhammayn waxqabadkii waxaan kale maba ka hadli karo لأنه دتك وإنا political update وإنا دتك update قرينا وإنا دتك كده بجينا واحد دولة إتاي وإنا دتك حكسينا مركز كولرسك وأوجه ذا تلفون نضيه أيضا الله إله نكا وحشيجا يواقلدينا مواسحية إلا موابر يسع وحنا شيجنا قياس معها وشير أو لجو عذابية هي وأكتر يسدي اللجو هي أيا وحكله شيء دولة أن كاين أو ومهد علينا إنه مدحوينا محمد عبد الله فرماجو وحير وشير وإن الفرا وإن بورر كي وإن الفرا حدودي باي ماشي اللي يرادو بلد حاو يو دوبلي يلي بوي وإن الفرا وأنا لو فري كوبي لواتن مدفع بالوردي وكسي الدولي وحو تجي أدي الكورة يا إيشك تركيا والأوجا وحي اللي سمي وحو تجي إثيوبيا وضد كفرت وغير شرت هذا واحد وقتاي أنا أوجه التلفزيون كان أنكفر صدي رئيس الوزراء أوجيت أو إثيوبيا إن ويروان كاي لنا دب دمبنا أفرق جلين منه أرمها سوماليا وجمع جمع مثلاً سببته تاي أنا جوا فدرال باناي ما على دين اللي ييرتو اللي بينا وح وقف عن عدو جا وكوقره وروح عن كوش يجيا قفكي وناك ربا هرت وحوي الدولة ده هالكاسين بريسا شركة هديرو قدام بي انت الله waxa la yiri waxaanu u baahanahay anagu shirarka yarka la iska qaban jiray ma ahine waad ogeydeen sidii ay isku raaceen maamul goboleedadu waxaad hadalka ku furtoon aad ugu raaxaysanaya Cabduwali Gaas oo dhaliilay nimanka aan hadda aan ka wada hadli doono caawi waxaad u jeedaa in dadkii Soomaali ay midowday oo ay israacday oo ay wax weeye anagu waxaan ka hadlaynaa oo lagu mashquulshay qurba joogta hadda dastuurkii waxa weeye abti waxaan u sheegayaa dastuurkii waad u jeedaa waa tii loo maamul goboleedada dhan hadda laga soo qayb galinayo ilaa dhameystira la rabaa saacadaha soo socda qabyada laga saaro la dhameystiro waxa la rabaa one man one vote in 2018 ka hor waa inay wax weeye xalimayare iyo la sii diyaar gareeyo ururkeedii waa la sameeyay waxa la leeyahay wixii dawladii hore dhacday ay ka gaabiso dhan hadda fara dastuurkana hadda lagu jira waa maamul goboleedada dhan waa ka soo qayb galeen علماء الدين كي أقوياء كبرشة قيمة دون وكسو قيم قلين حدنا وحلا سمينا يا حليم يري قلدي ونمان قفي عد جارتين لنا ويس عطا وحنورت الربع شعب كالصومالي اللي يا همبليو سديد دي بشي لباد يكون يتضبيه طبنكا وحيا هيد والله ديه كرا وبابريي بالعسن أرور يسوبان مالين بغران وحيا هيد قف بين آدم وسكورين haddaan kula soo socodsiyo way aan ugu riyaaqaynaa dawladdan maxaan way aan ku raacnay maxaan naga maqnaa waxa naga maqnaa lahaanshihii Soomaalida 1900 maalintii Caydiid uu 6 maalmood uu mootanaa Ethiopia waxay soo gashay meesha la yiraahdo Luuq ka bacdina isugan ku dhameeyay ka bacdina international community-gu beesha caalamku waxay gacanta ku dhigtay lahaanshihii Soomaalida waxay sameyn jireen kay rabaana waa irin jireen kay rabaana waa keen jireen waxay rabaana waa sameyn jireen waxa la socotaa hadda hawada duulimaadka oo ugu dambeeya hadda shalay iyo maanta telefishinkiina ba ka fiirsanay waa tii commentiga la yiraahdo anaga naguma maamulaysin hawadeeda waa in Muqdisho waa in anagu maamulka ayaga la siiya qalabkiina asagoo sidiisa ku soo qaldama qaranka Soomaaliyeed qabsaday waxa la yiraahdo halkan inaga iska leh hadda hal shalay lacagta iyo adinku ka qaadi jirteen anaga ka qaadan marka canshuurtii la soo celiyay marka sharaftii la soo celiyay marka karaamadii la soo celiyay xildhibaanada aanu imaan maanta wax laga oranay marka wax qabadkii in badan waad ka soo sheekaysaa laakiin dadku waxay ka dhur sugayaan awliyo iyo dadka la midka ah xildhibaanada Nairobi ku shiray waxay ka oranayaan waayahay waxaan rabaa dad horta waxa la rabaa Allahu akbar salaada markii la yiraahdo ama afar ragcaha hata ama laba ragcaha hata assalaamu alaykum kuma xigto Allahu akbar markii la yiraahdo faataha la akhriya marka salaada la xirto dawladdan macnuhu waxa weeye dawladdan laba bilood bay jirtaa 103 sano ma gaarin ninka is aruursaday waa is og yahay dadna waxa u xun waxa la yiri ninkii guri muraadada ku jiro waxa weeye dhagax tuur ha bilaabin axsaabta isku tagteena waa ognahay afka maanta kuma ballaarinayno
laakiin waxaan kuu sheegayaa waxa doqonnimo ah oo aad iyo aad iyo aad iyo aad u liidata nin xukun diidaya oo ninka xukunka helay asagoo oon waqti siin oo bilxikma ah ya xikmad ah hal sano xataa hal sano asagoon joogin ama 6 bilood joogay la waa xun yahay ninkaas almarxuum qaldaan taas wax dhici kara ma aha waxaanu leenahay nimankaas waa qaldan yihiin iimaanka hays geliyeen waxa jira labada qolo isku beerto abti uu sheegayo waxa weeye waa nimankii Sheekh Shariif inta uu tagay yiri lacagta nasi oo yiri anu waxba ma dhiibayo oo ay markay ku hunguri daroobeen waxa weeye farmaajo caaradii ugu shubay farmaajo uu yiraahdo uu koob shaadin ma haya dad qaranka dhisaysiina kaalay hadii kala iska dhaafa oo shala wixii ay rabeen ku gorgortamayeen isuga anaga ku sheegayna waxaan meesha ku shiraya waa nimankii aad ogeyd oo waxa weeye hameenkii maalinta doorashada ka horeysay hameenkeeda cashada lagu sameeyay meesha waxa hormuud waa xidig waxa shiraya oo la leeyahay dawladda ka soo horjeedana waa dam jadiid iyo daljir oo aan ugu aqaano daldumis dadkuna waxay leeyihiin dam jadiid iyo daldumis dam jadiid iyo daldumis dadkeenu warkood ma rabo waxay doonayaan midnimo la doonayaa nimankan waxa la leeyahay waxa weeye do the right thing to the right time wax sax samee waqtigay saxiin ninka siyaasad raba waa inuu hal sano jooga hal sano iyo 4 bilood ayaan anigu Xasan Sheekh Maxamed markii la doortaan xamar ka bixin markii arkiifiyadayda aan inta buuxsaday aan ogaaday Soomaaliya inay socoto maalintaas aan inta dabada u soo baxoon u tagay waliba madaxweynaha oo aan 18 jeer la kulmo 2 jeer anigu aan u tagay 16 kara asagu ii yeeray maalintaas aan u sheegay oo waxaan ku yiri madaxweyne anigu waan baxayaa waxaan wadaa riwaayad la yiraahdo aragnay ma maqasheen fiqi buu ahaa ninkii markaan sameeyay riwaayada i xiray oo nabad sugidda ah ma fahamtay oo dalka dhaxdiisa ku sameeyay asagoo ahaa ninkii ka tiiniday asagoo ahaa ninkii ii yimid oo saaxiibtinimada iyo ismalaha sharci darrada marka inuu maanta asagoo 2 bilood jooga asagoo nabad sugid soo maray oo safiir soo maray oo siyaasad badan ku jira inuu xasanna turkish kula shaqeeyo halkaan uu kula xisbigiisa daljig iyo dam jadiid uu ku biiro waxay noqonaysaa inuusan dan Soomaaliyeed wadine oo qadadoon uu ahaa aad u liita waliba